daawadayaal waxaan ku suganahay guriga aabaha Soomaaliyeed maxaa la dhahaa aan ku wareysanaynay jimciye soo dhaafay jimciyada kala joognaa todoba ber gudood $50 waxaa soo diray wiil magaciisi la dhahayo Zakari Sayid runtii aabaha maadaama inta caruur uu haysto iyo kuwa ka badan waa kala maqan yihiin maanta iska jimco ilmaha dhedheela iska jiraan marka inta caruur uu haysta family way meesha aad joogno gurigiisa waa daawadayaal lacagta qabso $50 insha Allah waa u duceeyay khayr Allah siiyo muraadkiisa Allah saqro waa haya ka badan oo khayr qab Allah soo geliyo walaalaha waa u duceeyna meel ay joogan waxaan u baahana in la caawiyo ninkii awoodo heshii wax meel aasa ii saari karo ciyaalan ciyaalka iskuulay rabaan dugsiga rabaan guri kire hal iga rabaa riyaal iga rabaa koronta iga rabaa ninkii heshii maanta 20 isiin kar 50 isiin kar 30 isiin kar ijaarka gurigan ayadana waxa laga rabaa $120 heshii macalfiyan macal korontada wax ku jiraan marka walaalihii meel kasta ay joogan oo dadka idaawanaayo waxaan ka codsanayaa inay heshii meel wax ii saari karaan maanta halkan waxa laga tagay waa adduunyo leeyahay insha Allah waxa la rabaa in la caawiyo ahsantu kana waa ka qaba asbaan daawadayaal maadaama tiin durdur anaga aan ka shaqeeyno samafalka iyo armiisa ma ka caajis doono inaan maalin kasta soo gudbino dadka tabaaraysan aan caawinano ramadaanka soo dhow sadaqada aad maanta la baxdaa shirkadda elektarooniga casriga ee Shaarib shirkadan oo ah shirkad caan ku ah qalabka elektarooniga caalamiga ah waxay ku suurta gelinaysaa inaad hesho qalab tayo leh oo aan koronto ka cuneynin adiga oo helaya firinjeerada qasaaladaha air conditionada makiinadaha cuntada iyo wixii elektaroonig ah oo aad u baahan tahay hadda aad oo ka dukaamayso xarunta Shaarib oo ku taala suuqa Bakaaraha wixii faahfaahin ahna waxaad ka wici kartaa telefoonada shaashada kaaga muuqda balanteenu waa Shaarib Electronics Company waxa aad ku baxsanaysaa adduun iyo aakhiro wax ku qoran waxyaabaha celi kar waxa kamid ah sadaqada bal qiyaas heerka ay sadaqada tahay وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على البر والإثم والعدوان marka walaalayaal halis caawiyo qof kaliya ha caawiyo dad badan oo dabaqida dheer jiro dibadda wax laga soo diraa dad xamar joogo u shidantaa jir maqaayadoodu aad u shidantaa faan dadka dibadda wax soo diro dadka dibadda inay wadankayga maqan yihiin damqasho marka walaalayaal yaa la isku fiirsanin insha Allah walaalayaal ali soo caawiyo heelal ay joogtiin isoo caawiya indhaha wali gacan wali lagu wali waxaan u jeedan walaan insha Allah walaalayaal khayr Allah idin si meel kasta ay joogtaan kii dalka joogay kii dibadda joogay ay joogan isoo caawiya furaashan ewer 838 kaasna waa wata furaashan ewer 838 ewer 25 halshan ewer 838 durduruhidiyana ay la soo xiriiri kartiin lambarkaana ay soo xiriiri kartiin insha Allah meel ay soo xiriiri kartiin durduruhidiyada ugu soo diraysa magacayga saddex sheeg magacayga Maxamuud Macalin Aadan Cusmaan Maxamuud Macalin Aadan Cusmaan Maxamuud Macalin Cusmaan shan ewer 838 tartiib u sheeg shan ewer 838 horashan ewer 838 jazakallahu khairan jazakallahu mardi muqtar guudo walaal caawi walaalkaaga miskiinka ee dhiban ama sintiin